tani waa sida u egtahay hidaha Soomaalida haddii aad ka heshay muuqaalkan laagna si oo raac sheekooyinka la midka ah madxafka qaranka Soomaaliyeed ayaa xirnaa in ka badan 30 sano balse ugu dambeyn waxa dib loo furay sanadkan 2023 waa meel hooy u ah ururinta in ka badan 10,000 oo farshaxan oo ay ku jiraan dhoobada qadiimiga ah iyo dahabka madxafka ayaa dib loo furay iyadoo bandhiga loogu magac daray hooy oo macnaheedu yahay guriga ujeedadiisu tahay dib u soo celinta asalka ah iyo hidaha taariikhda ee dadka Soomaaliyeed wax kasta oo yaalo madxafka 19 artist waa jawaabta ay ka bixiyeen oo ku aadanaa hooy iyaga soo arkaan iyo wax uu hooy ugu dhigan yahay dib u furista madxafka ayaa dhacdo weyn oo soo hoyata Soomaaliya waxaana ay fursad u tahay fanaaniinta gudaha iyo dibadda inay si xor ah ugu soo bandhigaan fankooda sida dalalka kale ee caalamka